الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لبي طبناد هي كتاب كان مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله وحن كجرنا قيبتي اسبربر لقى علمك إيا مالك وحور الشيخ ابن القيم رحمه الله مالك غنى المال قفك مالك إلهي سيي wuxuu mar walba ku sugan yahay khoof iyo xusn xoolihiisu u baqaya armay ka baaba'aan armay ka khasaaraan murug iyo xusni maanta waxaasaa khasaaray marka waa xasiin intuusan xoolaha horta weli helin waa murugaysan yahay xaguu xoola ka helaa murug buu ku jiraa haddana khaa'ifun bacda xusuuli markuu helana wuu u baqayaa armay kaa dhumaan armay kaa khasaaraan marka isaga dhan noloshiisu waa sidaa wa kullamaa mar kasta oo xoolihiisu sii bataana ولو فيرسو وكلما خوف كيس يا عبسيديسو حوله وبقي أي سيبضته إلا قف إلهي سبحانه وتعالى ويسوء قرقاري أو حولها السقوله أو حوله عين لهين وإلهي جعنتي سجلي أو قلبي سؤون الجلين وكل الله إن حولها إلهي قلبي جاي جليو ين إلهي جعنت هذا جليو هذي جعنت هذا كل جرا واد بحين كرتا ومضى وحكسين لكن قلبي هذي كجرا وجعله قلبي لجو جليو وحوي ما بحين يسد وان كهلاك سميسه haddaba hina alcilmi laakiin cilmiga qofka ilaahay hani kaga dhow ilaahay cilmi uu baray maqruunun bilamni walfaraxi waasuruur isaga ilaahay wuxuu siinayaa oo qofka mar walba uu ku sugan yahay amni nabadgeliyo farxad rayrayn cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala marka wax xoolo u baqaya meesha ma joogo cilmigiisiina wuu ku farxayaayo amni buu haystaa iyo farxad iyo suruur أن الغنى بالمال قفك حولها غنية كوه وحالي هذا وعين فقر النفس نفتادو فقر بيدريميسا بلو فيسو إلهي حول بدن بكسي حول تراب بدن أيو كسي وحالي شيء وضمده إني أوكله رجيل بدن لها أو ماركت إلهي إنتاسو بقول أو حلال لها بمالي وحالي الزكاة الله بحيو markaas hadee qaalmihii geeli la soo guray 4 jiro oo 5 jiro oo wada qurux badan oo markii la soo ururiyay ayaa wuxuu iga sii daayay kuwaan bixin maaye markaas la yiri geelu naarta markii qofka aan zakada bixinin geelu waa ku tumanaya oo waa ku istawar aniga igu tunta duu rabe faraha ka qaada uu inii heblaad maanta iyadoo soo dhowraysa bixin maayo sidaas oo kale waxa anigu arkay oo xusuusanin geel badnaa isaguna oo aad u geel badnaa oo kabala kabii ay ka go'een oo kabna gacanta ku sita midna qaba oo in geelisana taqriiban boqolaal ayuu dhanaa marka noloshaas marka qaarkood ku sugan yihiin alghina laakiin qofka ilaahay cilmiga uu siiyay waana ghaninimada xaqiiqada ah waa midda cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala taasa ghina la yiraahdaa haddaba man qudima wa ukrima limaalihi u fiirso qofka loo soo hormariyo meel ama la karaameeyo la maamuuso xoolihiisa darteed haddii xooluhu ay dhaafaan qiimihiisi wuu tegi karaamadii uu lahaana way dhammaan laakiin qofkii meel loo soo hormariyo ee la karaameeyo la maamuuso cilmigiisa dartii wuxuu sii ziyaadsanayaa taqdiim iyo ikraam mar walba in la hormariyo iyo in la karaameeyo la sharfo tusaale ninku markuu hadda maal qabeen yahay umada waxa la yiraahdaa dadka waxa marka qaar ilaahu mudoqon xitaa ahaado haduu ninku reerka ugu xoolo badan yahay isaga ugu aqli badan hebel inoo geeya meeshiisa lagu shiraya meeshiisa la soo wada iman umada isaga marka awaamirta kala siin wal ninku ugu doqonsanaawe laakiin ilaahay baa xoolo ku soo xoolahaas ku cabiidsada umada saas ku leeyahay laakiin haday xoolahaas dhaafaan qofna qiimo dambe u yeeli maayo karaamana male meel fadhiisin iyo xagga soo marna male laakiin ninka cilmiga ilaahay siiyay ee sheekha ah mar walba isagoo ka takriimkiisa uu haysta iyo karaamadiisa xoolaha ninka ilaahay uu qani kaga dhigay wuxuu ka baqayaa inuu dhinto wuxuu ka baqayaa inuu alla la kulmo maxaa jira jacaylka xoolaha uu u qabo baa waxay keenayaan inuu noco inuu xoolaha ka tago waxay keenayaan inuu mar walba jeclaado inuu joogo xajir wuxuu isleeyahay waxaan ka dhex tagin nimcadan aad ku jirto laakiin cilmiga qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo baray isagu wuxuu jecel yahay liqaha allah inuu allah la kulmo ayuu jecel yahay inuu rabbi la kulmo ayuu isagu jecel yahay wuxuu maartay adduunyada uu ka zaahidayaayo jacayl adduunyada ma helaayo
arrinta labaatanaad oo ibnu qayim uu kusoo khatimay isbarbardhigii cilmiga iyo xoolaha wuxuu yidhi ana alaghniyaa yamuutu dikruhum bimowtihim waalculamaau yamuutuuna wayaxyaa dikruhum. aghniyaa nimanka maalqabeenka ah dikrigooda iyo sheegsheegooda wuxuu ku dhammaadaa dhimashadooda, laakiin caalimka way dhintaan culimadu, wayna dikrigooduna wuu sii jiraa. oo sheekhii hebel ahaaba, tusaale ninkii xoolaha lahaa ee maalqabeenka ahaa ee ummadda wada shaxaadi jirta ee markuu dhinto hadalkiisa wax sheegi ma maqashay, qofna ma ka maqlaysaa. xoolihii waa la dhaxlay, dad kaloo laga yaabay inayna xitaa isaga ku xamdinaynin baa ka qaatay, laakiin culimadii ilaa asxaabu rasuulillahi sala allahu alay wasalam, alambiyaa walrusul walculamaa walsaxaaba waltaabicuun, hebel baa xata alculamaa almadaahib alarbaca maalin walba